نور هنا نور كان بهلولك جر القوم إخواني هنا نور هنا عمل فخير كان وكفني تزيد بخطوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسكني والدرس عموما كصاب سيسن الأمة الإسلامية يدبتن هيسته يمحل قبح كراه ومدى الصوماليدون ملائكة وكسيتاي. waxaa laga yaabaa wakhtigii ay Soomaaliya wadankii loo odhan jiray uu burburay ee Mareykanku xamar soo degay. waxaan xasuustaa iyadoo Bush al-Ab uu ka soo degay magaalada Xamar oo dabeetana dadka badhay jecel yihiin xidigtii yareeda calanka Soomaaliyeed ku taalay in lagu dhajiyo xidigaha badan ee ka Mareykanka ku dhex yaala. maalintaasi sawirka wixii aan ka fahmay waxaan isku dayay bal inaan wax tawjiihin karo. waa 1992 December baan rajaynaya. waxaan galay muxaadaro aan u bixiyay ayna alxal, mushkiladeena maxaa u xala, ma xidigtaynu xidigaha ku darsanaa si xal kala la hayaa. waxaad moodaa 17 sano 18 sano kadibna wali waxaan ka hadlaynaa mal makhraj, war nafaqan madow ee lagu jiro ma jira meel looga baxaa. qadiyadaasi aan u soo bandhigi karo aniga inta ii muuqata waxaan isku dayayaa inaan muqaddamo sameeyo taariikhiya, waayo taariikhdu waa waxaa in badan wax lagu qiimeeyo, waa waxa in badan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kitaabkiisa inoogaga warramayo tajribooyinkii bini aadamku uu ka soo warramay. dariskani muqaddamo u noqon doonaa in sha allahu tacaala. duruusta dambena waxaan kaga warrami doonaaba taariikhda uu qur-aanku soo bandhigay siyaasiga, taariikh ilmuluuk ee uu qur-aanku ka warramayo iyo siduu uga warramay. laakiin dariska kan waxaan ku tilmaamayaa taariikhda guud aynu arkaynaa waxa weeyaan, waxay yidhahdaan taariikhda caalam alislaami. taariikhyahanada qaar baa waxay yidhahdaan waxaa jira maxadaad ama meelo waaweyn oo taariikhdu isbeddeshay. kow waxay isbeddeshay bay yidhahdaan dee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam soo bixitaankiisii iyo jiili saxaaba iyo taabiciintii kontoneeyadii sannadood ee ugu horreeyey taariikhda islaamiga oo ah wakhtigii dunida risaalada islaamiga ay biyo dhigtay, mabaadi'deeduna ku faaftay, dhul badanna ay gaadhay. taariikhdaasi islaamigii kor bay u sii socotay ilaa iyo ay bilaabantay qarnigii 11aad ee miilaadiga dabayaaqadiisii wixii loo yaqaanay alxuruub asaliibiya, crusades, oo ah in qalbi alcaalami alislaami dib loo weeraro. mantaqat shaam iyo masar iyo bartamihii caalamka islaamiga in weerarku dib ugu soo bilaabmo oo uu bilaabmo wixii loo yaqaanay alxuruub asaliibiya taariikhda lagu yidhaha crusaderski. laba qarni ku dhadhow bay taasi socotay. akhiiran waxaan odhan karnaa waxay taariikhda islaamigii isbeddel xooggan samaysay qarnigii 20aad markii ay dhammaatay xadhiggii isku hayay dadka muslimiinta ah ee ahaa alkhilaafa alislaamiya, khilaafadii cuhmaaniyiinta oo intii dambe iska mariid ahayd markii la kala dareeriyey. taariikhyahanadu waxay sheegaan arrintaa waxaa ka dhashay bay yidhaahdaan
1924 baan filayaaba la kala dareeriyey alkhilaafa alislaamiya oo turkiyana jamhuuriyad iclaansatay caalamulislaamigii kale maxaa ku dhacay waxay dhahdaan saddex waxba masaladaasi ka dhashay kow waxaa muuqday dib u dhaca uu ku jiro caalamka islaamigii marka la eego horumarka maadiga ee dunida kale ay samaysay gaar ahaan ninka cad ama yurub horumar alculuum alxayaatiya ama maadiyo tiro badan baa laga sameeyey technologygaa soo ifbaxay way xoogaysteen muslimiintana waxaa muuqatay cawradoodii oo ah qarniye inay hurdeen horumarkii bini aadamkii ay hoggaamin jireenna inay ka luntay oo ay xagga aqoonta dunida taalla ay ka noqdeen caydh kaasi waa qodobka koowaad qodobka labaadee ka soo baxay wuxuu noqday in caalamulislaami dhammaantii ama intiisii ugu badnayd marka meel yaroo kooban laga reebo uu hoos galay haymanadii ama isla weynidii reer galbeedka colonialismkii ama isticmaarkii baa bilaabmay cahdi alistikhraab in la gumaysto dunida muslimka ah iyo dunida saddexaad ee tabaca u ahayd oo dhan oo afrika oo dhammi ka mid ahayd oo markaasi uu soo baxo nin mustacmar la yidhaahdo oo dadka gumaysta iyo la gumaysto qodobka saddexaad ee masaladaasi ka soo baxay waxa weeyaan waxay ku tilmaamaan taftiit alcaalam alislaami aw tamsiiqi kantoonna yaryar in loo googooyey caalamka islaamiga ah oo manaatiq aw alcaalam mutraamiyo tiro badan iyadoo dunidu basharka ay isugu faanaysay laakiin la kala googooyo aad loo kala googooyey masaladaasi haddaad rabtaan waxaa akhridaan wasiiqada muranka badani ku jiro ee henry campbell wasiiqada lagu magacaabo henry campbell waa 1907 ninkii ra'iisul wasaaraha ka ahaan jiray waddanka ingiriis qoraal loo nisbeeyo oo ah khubarada aqoonta taariikhda ku caan ee wadannada reer yurub gaar ahaan waddanka faransiiska iyo ingiriiska bay yidhahdeen buu wuxuu weydiistay talabixin in la soo siiyo calanka ingiriis ee dunida meel walba ka taagan xadaarada bini aadamku way dumaane wuxuu ingiriisku yeeli doono haddii calankiisu uu soo ururo ingiriisku intaanay taasi dhicin muxuu yeeli karaa dabeetana wasiiqadaasi waxyaabahay qorto waxaa ka mid ah dunida saddex qaybood bay ugu qaybiyeen nimankii talabixinta siinayey dunida reer galbeed iyo ninka cad iyo siduu ula dhaqmayo iyo in xadaaradda iyo cilmiga iyo aqoonta laga dhibo qori isu dhiib oo hadduu ingiriisku yaro gaabiyo maraykanka ama faransiiska ama jarmalka in qoriga loo dhiibo dunida kale inta soo hadhayna bay yidhaahdaan laba qaybood buu u qaybiyey alxadaara asafraa waxay u bixiyaan yalow biibulka ama xadaaradda yalowga ah waa indhayarka iyo eeshiye iyo dadkaasi oo dhan iyaga waxay idhahdeen values ama qiyam la loolama qiyamka ingiriis ma lehe ee reer galbeedka qiyamkiise waxaynu ku wada dhaqannaa masaalix ha noqoto wixii masaalix inoogu jirtana ha la ogolaado wixii kalena ha la diido almandaqati alkhadraa bay idhaahdeen qaybta cagaaran oo caalamulislaami wasiiqadaa waxay u nisbaynayeen inay sheegayso dhowr shay inuu kula dhaqmo kow in aqoonta laga ilaaliyo ama macrifada in xuduud loo yeelo aqoon waxa gaadhi kara siiba technology inaanu gaadhin laba waxay tilmaameen aqaliyaadka ku hoos nool in kor loo soo qaado minority groupska si homogeneous aanu noqon karin ama bulsho mutajaanis oo wada socota aanay noqon karin saddex bay idhaahdeen khilaafaadka xuduudiga in la badiyo qoladan gobol yar ka jar gobolkaa kale ku dar kuwa qaar yar ka jar waxa xariiq maanta dunidu isku haya ingiriis baa dhigay waddanba qabaa'il waa isku qabiilah ayuu inna dowlad heblaayo ku dara inna dowlad heblaayo ku daro si laysu hayo uun ilaa inta qiyaamo ka dhacayo isaga aragtidiisa calaa kulli xaal taftiit alcaalam alislaami halkan waxaynu uga jeednaa uun khilaafadda islaamigii markay duntay wixii soo baxay saddex qodob buu noqday kow inay muuqatay dibudhaca haysta caalamka islaamiga marka laga eego xagga aqoonta laba inay caalamulislaami uu hoos galay
gacanta gumaysiga saddex in loo kala jaray caalamul islaami gobollo yaryar iyo tuulooyin yaryar iyo waddanno yaryar oo dhowr boqol oo kun iyo milyan iyo waxa umamka dunida saddexaad ku nool oo ay ka mid yihiin caalamul islaami waxa ka bilaabantay markaasi fikrad cusub fikraddaasi iyana waxay yidhaahdaan saddex qodob oo saddexdaa qodob ka soo horjeeda bay ku salaysnayd inta aynan ka warramin atyaafta siyaasiga ama kooxaha kala gedisan ee siyaasiga fikradda tan xambaaray fikraddaasi waxay ku salaysnayd bay yidhaahdaan kow altaxriir aw alxurriya gobonnimo doon in dadku wada bilaabo gaal iyo muslimba wixii la gumaystay inay raadiyaan xorriyad iyo taladoodu inay gacantooda dib ugu soo noqoto oo gobonnimo doon uu ka wada bilaabmo waxaa bilaabmay bay yidhaahdeen masale labaad oo ay ku tilmaamaan annahda wataqadum waddannadaas la wada gumaystay waxay qireen ama qaateen inay xagga waxbarashada iyo aqoonta iyo technologyga dib ugu dhaceen dabeetana in la bilaabo waxbarasho iyo horumar in la bilaabi karo oo tacliimka waxa la yidhaahdo xoog in la wada saaro qodobka saddexaad ee bilaabmay waxa weeyaan bay yidhaahdeen alwaxda halkii la kala googooyey dadku inay isdoondoontaan iniba si ay isu raaci karto oo midnimo dib loogu abuuro idan waxay yidhaahdaan mashaakilku suura waaxida buu ahaa oo ah dib u dhac aqoomeed googooyn gobollada la kala googooyey iyo isticmaar gumaysi la gumaystay dunida saddexaad waxay u kacday markaasi oo uu ka mid yahay caalamul islaami inay xorriyad raadiso iyo inay aqoon dhisto iyo in midnimo la raadiyo waxay yidhaahdaan marka qodobkaa la joogo waxaanoo dhamme waxaan rabaa waxaan u socda inaan muqaddamo u yeelo waxay yidhahdaan qodobkaa marka la joogo tashkhiisu daa xanuunka in la sifeeyo dadku inta badani waa isku waafaqday inuu xanuunku yahay gumaysiga inuu yahay aqoon darrada inuu yahay kala googo'a waxaad mooddaa in xanuunkaa sidii loo sifeynayay la isku wada waafaqay inta badan dawadiisana si guud in la isugu waafaqay waa in xorriyad la raadiyo iyo gobonnimo in midnimo la raadceeyo iyo in horumar la raadceeyo laakiin bulshadii dunida saddexaad ku nooleed siiba bulshada islaamigii waxay ahaayeen kooxo siyaasiyo kale afkaar gadisan baa waxaa xambaarsanaa kooxo qowmiyiina baa jiray nationalista kooxo yasaariyiina baa jiray communism ama socialism ama ishtiraakiyo ama afkaartii reer bariga rumaysan kooxo islaamiyiina baa jiray dad culamo oo muslimiin ah iyo ururo islaamiya iyo dad muslimiina oo xornimo doonkii ka qayb galay ilaa iyo haddana soo jiray kooxahaasi afkaartaasi guud waa la isku raacsan yahay laakiin maxaa see loo fasirayaa maalan waxda midnimo see loo fasirayaa maalan kooxihii qowmiyiinta ahaa waxay rumaysanaayeen basharku inuu qowmiyad isu raaco alqowmiya alcarabiya oo kale alqowmiya asoomaaliya oo kale maalan soomaalida dadkeedii nationalistka ahaa ee xornimo doonka ahaa waxay rumaysanaayeen wax la yidhaahdo asoomaali alkubra soomaalida weyn oo ay u arkayeen qowmiyad isku afa oo isku luqada oo isku dhaqana oo isku hiddaa oo isku diina oo israaci karta oo xornimo wada qaadan karta in la wada raadaceeyo waxay rumaysnaayeen in horumar la sameeyo siiba horumar cilmiya dabeetana waxaa bilaabmay schooling systemkii iyo waxbarashadii iyo rag qowmiyiin oo soomaaliyeed bay ahaayeen wixii bilaabay in iskuulla la furo in tacliin la furo in wax la barto aqoonta dadka in kor loo qaado waxay rumaysnaayeen in la xoroobo
oo ummaddu dhaqaalaheeda siyaasadeeda diinteeda caqiidadeeda waxeedaba ay xor u noqoto oo mustacmarka la saaro qoladii gobonnimo doonka hore ahayd ama dawladnimada dhalisay ama fikradoodu taasay ahayd qoladii inqilaabtay even haddaan nimaadno kacaanku scientific socialism wuxuu u bixiyo qaatay aragtidiisa dambe markaynu ka nimaadno saddexdan qaybood isna waa rumaysanaa uun qaabkuu fuliyey ha dambayso laakiin in soomaali weyn la raadiyo dee dagaalaabuu u galay waa u halgamay soomaali weyn buu raadacinayey waxbarasho iyo cilmi in kor loo qaado af soomaaligu uu qoray jaamacaduu furay iskuulluu badiyey cahdigiisii wax badan buu ka geystay oo horumar buu raadinayey in la xoroobo isagu wuxuu arkay reer galbeedka iyo kuwa in laga xoroobo shuuciyadda lala xidho oo aragtidaa la qaato islaamiyiintu hadday tahay culammadii soomaaliyeed ee u soo halgantay xornimada ummadda tan ama u soo dagaalantay ama ururadii islaamiga ee wakhtiyadaa hore dhashay waxoo dhamme waxay raadcaynayeen in isticmaarka la iska kiciyo iyaga aragtidoodu in badan waxay u janjeedhay xagga midnimadu inay dawla islaamiya ama khilaafa islaamiya ama caalamulislaami in lagu xidhmo oo dib loo soo celiyo oo waxdinimadu way ka weynayd iyagu aragtiday arkayeen inta soomaalida ah marka la eego waxbarasho iyo horumar iyo kan madaaris cilmiya iyo kuwa sharci iyo kuwan bay wadeen iyagoo rabay ummadan jahliga laga saaro waxay u arkayeen xorriyadda rasmiga inay tahay basharka in laga xoroobo oo ilaahay oo qura addooma loo noqdo caqiidatu tawxiid la dhiso sharciga islaamiga la raaco waxaan uga jeedaa marka erayadan sida loo sharxaya ama loo fasiraya ama marjaca loogu noqonayo iyo meesha masaadirta waabaa lagu kala gedisnaa laakiin cumuuman fikradda in ummadda wax la taro waxaad moodaa dadku inay wada rumaysnaayeen wakhtiyada dambe waxaa iska badatay aragtida mu'aamaraadka inta badan lagu saleeyo aanu waxaan odhan karaa dad badan oo dadkaa ka tirsanaa waxaan u arkayaa inay ahaayeen dad nowcun maa daacad ahaa laakiin daacadnimo waddadoo aanay sax ahayn dee meel ma gaadho daabad mabaadi'daada daacad u tahay laakiin aanay ahayn kuwo ku salaysan wax rasmiya kufkufkaa iska tiro bata ma wada odhan karo dadkaasoo dhammi dabadhilif bay ahaayeenoo gaal bay ku xidhnaayeen kanbay ma wada odhan karno waa aragtay qaldantaasi bay ilatay dad badanoo fikrad saxa wataa jiray laakiin waxaan odhan karaa meelaha afkaarta laga soo qaadanaya ama lagu tiirsanaa ama waxa kan ay ka soo burqanayeen ayaa dad badan maraajicdooda qaldanayd ninka scientific socialism ku tiirsanaa waxaan garan karaa in masaadirtiisa iyo maraajicdiisu ay aad u qaldanayd hadda wakhtiga kan xataa cilaajkii mushkilaadkii koowaad ee markii hore adyaafta siyaasiga kala gedisnayd kii nationalistka ahaa ee qowmiga ahaa kii socialistka ahaa kii islaamiga ahaa wixii ay markaa isku waafaqsanayeen ama isku meesha ka arkayeen iminka waxaad moodaa inaanay isku meel mala laga arkaynin su-aashaan isweydiinayna waxay tahay war soomaalidu afkaartaasoo dhan haddaynu hoos u dhaadhacnay iyagu miyay ka wada tanaasuleen hadda fikradda jirta caalamka soomaaliyeed waxay u badan tahay ama caalamulislaami in la sii kala gogo'o la sii yaraado la sii yaraado la sii yaraado ay u badan tahay in kor loo koro uma badna dunidu kor bay u koraysaa sax dunidu qowmiyaadkii yaryaraa xataa nationalistka ah bay ka baxaysaa oo qowmiyo ka weyn bay ku sii socotaa waayo dunidu waxay fahamtay maanta Germany iyo Ingiriis iyo Faransiis iyo Talyaani oo kala qowmiyaad ah haddana waxay dareemeen masaalixdooda iyo danahooda caalamiga inaanay ilaalin karaynin dawladina kaligeed iyagoo lacag loo dhaqaalo loo kan leh waxay u arkeen aragti ah nawcun ma inay Yurubta weyn sameeyaan oo qowmiyaad kala nooc oo kala afo kala waxa ay ku jiraan si ay u ilaashadaan masaalixdooda guud ee uu ninka cadi wadaago ama ay leeyihiin عالم الإسلامي لكن ولي وحو سي سعودة حاجة كله جرهان سومالي وحو سي سعودة إن لا سي يراضه وحكى الله مذا
waagii hore fikradda taale waxay idin la xoroobo oo dadku dhaqaalahooda siyaasadooda caqiidadooda mabaadi'dooda wuxooda ay xor u noqdaan waxaad moodaa taa lafteedu hadda inay xagga kale u janjeedho oo soomaalida in badanoo ka midii waxay raadinayaan almujtamac الduwali iyo dowladaha caalamku hana soo gaadhaan militariga dunida hana loogu yeedho hadda wakiila lahaa naga baxo markii hore xorribadoonku wuxuu ahaa ha baxaan waxaan waddanka u dhalani waxaan Soomaaliya waddanka ka baxaan isticmaalku hanaga baxo baabkaas loo fakarayay hadda waxaad moodaa masaladu waa cagsiga mujtamaca duwaliga hana soo gaadho dowladaha Afrika iyaga soo cararto ciidamada dibadda hal la keeno وهنا الاستعباد سدبات موداين وقضية وصعته هل كأول هيد إن يدت كان حرية رادين يعني يجوين يشان قرار كذا كبدا ما يستاه هل كي لقى فكرة نهضة إن للسماية هرمر أقون علم تكنولوجي وحلا كوريو واحد موداين لقوا بدلاي دجال يستيل يبربرين يمدفع هو سوسي علين ساش مركا وحيتاهي وروحي بحاجة كلا يفور راني ما المخرج that's the question marka أنا محاضرة يدو marka أنت نواب مقدمة لكن waxa isweydiinta le waxa weeyaan ma jira way out exit tunnelka soo taqaanay nafaqa baalkan madow ee dhulka hoostiisa la maro mid madow aan leyd lahayn baa la hayaa meel uu ka baxayana la garan maayo war ma jira meel yar oo laga weecdo laga bixi karaa على الأقل إفكون أنا صباحنا تونل كان مدو ما لقى صباح كرا نفقة كان والسؤال شيء سويدين تله بس السؤال ده حيوك تاي يعني دبت طالة حرية دي كان دا يدتك وحمرة يا إمك حرب الوجود وحنرنكره ضد كان بدها كمر دايم حيوكم مردين وين النور هذا برادينية dadkan qaxay ee dooyaha fuulay ee maranaya ee la leeyahay doon baa degtay badda inta ku qarqo saxaraha liqay waxa maxaa sii wada waa ala laqal nafsi bay ka taagantahay bal sidoo noolaan lahaa buu ka fakaraya aqliyada Soomaaliyeed marka ma waxay ku gabagabowday qofku sidoo noolaan lahaa mid bad ka dhacay mid saxara ka dhacay mid meel kale ka dhacaba inuu xalku intaas noqdo هدين سؤال سويدنا سيدي فيلسوفرسكا إنه نقولنا فيلسوفرسكا وحيد هذا جواب فلسفي ما شرت بيد هذين أي مسألة فيلسوفرسي سويديان هدي تبينين جوابه هذا طبعا ويكبتان بيد هذا قانون يهلنا ذا الله مد بيد هذين أي طبعا قانون يهمبو متكمل يد هذا مال سوي مادان مسألة الجواب تكبعي وقانون كان كإلهي كتير سنين جوابته waxay noqotaa buu yiri 10 kaasi inay koob iyo 10 jawaabood bixiyaan yaani way ka badataa waxaynu u aragnaa hadda in mujtamaca Soomaaliga uu muuqdo dad naxariistiya raxmadda mujtamaca duwaliga ilaalinaya raadacaynaya dad inay xorriyadooda ay u keenaan dad dabadeed sugaya قرآن كان إلهي وحين قبري سبحانه وتعالى ومد هداي دي بسوق دبتو إن يدا كتمي حل كنا مركاينو يدا كجرو صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام للسعوتي مركي أي شابين غزوة أحد أي هذين وحكان السداي ودعضي قل هو من عند أنفسكم بلغوا جوابا لما أردن قريش با idinka taaqti ka badnayd waa idinka xoog badnayd waa idinka xoolo badnayd waa idinka rag badnayd lama odhanin Khalid ba idin khiyaamayo meel kale ka soo baxay tricks ka la idinku dhigay ayaa tiraba waxa lama odhanin waxa la yidhi qul huwa min indi anfusikum hadii ay jiraan maanta dawladda dabadeed oo faragelin xoogan wadanka ku haya ama ummadda Soomaaliyeed ku haya hadii ay jiraan mujtamac duwaliya oo qadiyada Soomaaliyeed ku xoogsanaya hadii ay jiraan la yaabi maayo waayo wada dantooda raacanaya qofka bini'aadamka dantiisa isagu wuxuu maslaxa war ka raacanaya ceeb maaha cadaalad maaha idin maan oran ceeb maaha marka dhaqanka umamka lagu eegayo idan lama yaabayo inuu raadceeyo لكن waxaa ceebtu tahay qofka isagu dulman ee cid kale naxariisun ka sugaya aan garanaynin soo xalkiisa u raadsado
haddaba waxaan leenahay atyaafta siyaasiga ee xaldoonka maanta waxaa ka mid ah kuwa kale ka hadli maayo waxaa ka mid ah kuwa islaamiyiinta ah ama kuwa uu nisbo sheeganaya leannaga marjac iyaga iyo meeshaan u noqonaynaa waa kitaab iyo sunne mashkilaadka ka jira caalamka islaamiga ama soomaaliyeed xal baanu haynaa qaarkood marakis alqiyaada bay soo gaadheenba meelihii wax laga tawjiihinayay ama wax laga maamulayay ama wax laga wada bay soo gaadheen waxaan odhan karnaa maanta iyaga ah cala almaxak malaa aad hore looguma tijaabine hadday tijaabo weyn saaran yihiin dadka badh way niyad jabeen waxay is leeyihiin siyaasiyiintii hore waxba laga waa qoomiyiintii waxba dhali weyday yasaariyiintii tawraddii waxba dhali weyday qabiilkii lagu noqday waxba dhali weyday jabhaddii waxba dhali weyday dadku wuxuu islahaan bal kuwaa wadaadadaa talow iyaga wax ma ku hadheen iyagiina hadda malaa tamakhadat iljabalu fawaladat fa'ran miyay marayaan yacni waxay soomaalidu carabtaa waxay ku maamaahdaa buur baa foolatay bay dhahaan buuri hadday foolato dee waxaad sileedahay wax buur leegumay dhalaysaa laakiin carabtu waxay dhahaan buur baa foolatayoo jiir bay dhashay bay idhaahdeen mayay iyaguna qaabkaa u socdaan talow mise xal baa laga rajaynaya inay xal yimaadaan horta mid shakiga ka saara islaamku tajribo kuma jiro islaamku kitaab iyo sunnuhu inay sax yihiin inaanay saxayn inay wax maamuli karaan inaan wax maamuli karin in lagu badhaadhi karo inaan lagu badhaadhi karin tijaabo kuma jiraan waayo 1000 sannadood bay dunidan ka talinayeen 1000 sannadood baa dawla islaamiya hiya dawla lula fi alcaalam ay ahayd cilmi ahaan aqoon ahaan cadaalad ahaan dad ahaan nolol ahaan wax walba ay ahayd nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa tijaabada galay ku guulaystay saxaabadiisii baa gashay ku guulaysatay taabiciintii baa gashay ku guulaystay ummadii ka dambeeyay muslimiinta galay ku guulaystay idan dadka badh baa isla arma wadaadadaas haday fashalaan islaamkii oo fashalay war islaamku ma fashilin wadaadan niman la yiraahdo fashalay bashar min albashar kamida oo dadaalay baa dadaalkoodu hal baad lagu lisay noqday laakiin quraan iyo sunne ama mabda kan islaamiga ma ha ka fashilaya idan iyada mid ilow inaad leedahay islaamkii maanta de isagina la tijaabiyay sina waxba keeni waa waxba kama jiraan isaga waa la tijaabiyay waana lagu liibaanay waana lagu soo dhaqmay mana aha shay hadda ku jira tajribo oo la isweydiinayo war hadii la qaato ma lagu liibaano mise laguma liibaano ma aha islaamku waxa se tijaabada ku jira wuxuu yahay dhalinta Soomaaliyeed ama Carbeed ama caalamul islaami ka jirtay islaamka maanta uu nisba sheeganaysa ee ku dadaalaysa sheeganaysa inay soo celinayaan ku dhaqma diinta islaamiga ah ma yindad muahhal oo inay qiyaadada qabtaan oo islaamka soo celiyaan oo ku dhamsay wali may bislaanin ما markay mucaaradka ahaayeen nusuusta theory-ga masaajidda ka akhrinayeen ee sheegayeen bay saxaayeen markii la tajribeeyay armay cursigii libaaxyada kala noqdaan ama qashan qisada kale yiraahdaan libaaxyaa aroos dhigtay bay yiraahdeen dabeetana iyagoo arooskii ka ciyaaraya ayaa jiir ku biiray bay yiraahdeen markaasuu la ciyaara libaaxyadii way sheegeen waxay dhahay waradna maxaad ahay wuxuu yidhi amba intaanan arooska dhigan libax baan ahaan jiray buu yidhi beri umbaan aroos dhigto noocan baan soo baxay marka idina xagga u sii socotaa buu leeyahay dadu intaanay arooska dhiganin arma iyagu raacaykayga su'aasha aan rabo marka inaynu isweydiinaa waxay tahay islaamku tajribo kuma jiro laakiin wadaadka tajribada ku jira shaashu waxay tahay meeshan la taagay hadaba xal ma la hayaa meel laga baxaa ma jirta mal makhraj kulli sheekh maxamed oo dhinacayga fadhiya hadaan weydiiyo mal makhraj de waxa xafido wuxuu booran doonaa waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib
ninkii ilaahay ka cabsada subxaanahu wa tacaala ilaahay baa wuxuu u furaa makhraj. su-aashii markaa waxay tihi kayfa nattaqi illaah. waxa la isweydiinayaa wuxuu yahay waa ruuxa kan xalma loo hayaa. kollay dadku waa muslimo waxay odhan doonaan nacam alkitaabu wasunna, xal waa loo hayaa oo waxa weeyaan maxay? waa kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam. laakiin waxaynu leenahay waxaynu u baahannahay waa jawaab mujmala, waa sax, jawaabtii sax ahayd weeyaan, taasaan rumaysanay. makhrajku inuu yahay waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib. makhrajku inuu yahay xal kasta oo mushkilad kasta oo dunida ka timaada alkitaabu wasunna inay xalkii u yihiin. laakiin su-aasha isweydiinta le u baahan inaynu isla egna waxa weeyaan sidaynu jawaabta uga hella haddaba kitaabkiiyo sunnaha. kitaabkiiyo sunna way qoran yihiin, innagaa laynooga baahaya inaynu dadaallo o ijtihaadno ka keenno jawaabtii saxa ku ahayd kay tahay. eray kale haddaan isticmaale waxaan leeyahay sidee baynu u tabiqi karnaa nolosheenna waaqicigaa u gaadhsiin karnaa inaynu nadariyo ka baxno oo tabiiq camaliya tagno. yacni shaygu marna waa theory, waa aragti, marna waa wax practical loo bedelayo nolosha, nolol maalmeedka, siyaasadeed, dhaqaaleed, ijtimaaceed la rabo in lagu maamulo. sidee baynu ugu bedeli karaynaa? ugu horrayn culammadu waxay idhahdaan masalada wixii cilmi ku saabsan nihaayat اlcilmi bay yidhahdeen atawxiid, oo isagu bay yidhahdaan laa yatabacad. tawxiidku iyo caqiido saxa inaynu hellaa iyagu inaynu kitaabkiiyo sunna akhrino oo baranno. caqaa'iddu waa wax qofka maskaxdiisa dega iyo qalbigiisa, qofna lama xukumo. qof kastaba si rasmi u tabiqi karaa caqiidada dhammaanteed. waxay idhahdaan nihaayat lcamalkuna waa attaqwa. camalka practicalka shaqada ee la qabtaa taqwu ku gebagabaysmaa. laakiin taqwada waxaa la yidhaahdaa bay idhahdeen waxay ku dhisantahay mabniyatun cala alistiطaacati wاlqudra. inta la awoodo islaamkaoo dhammi qof walba waajib kuma ahe, qof walba intuu awoodaabaa islaamka waajib kaga ah. inbaa qofka islaamka ka saaran. ilahay wuxuu ina leeyahy faاtaquu اllaha ma اstaطactum laa yukallifu اllahu nafsan ila wuscaha laa yukallifu اllahu nafsan ila ma aataaha. qofna ilaahay subxaana wa tacaala ma kallifin baa la yidhi intuu awoodo mooyaane, intii la siiyey mooyaane. ilaahay ka cabsaa lagu yidhi intaad kari karto. waxaan u baahnay markaa inaynu dhowr masalo eegno. islaamka qaybaha qaar nusuustaa ku badan, ijtihaadkuna wuu ku yaryey ama maba jiraba. qofka kitaabka iyo sunnaha si fiican u akhriyaana masaa'ilkaasi si fudud buu u fahmi karaa. waa masaa'ilka caqaa'idka ku saabsan. caqiidadu war nin uma baahna. qur-aan iyo xadiid baa loo hayaa masale kasta, waana wax qalbiga bini aadamka gala. cibaadaadku inta ugu badan war nin uma baahna. salaadda waxaa laga yaabaa far la taagayo nusuus baa la hayaa. in meeshaa farta la taagaya inaan la taagaynin xadiis baa soo arooray. nusuustaa ku tiro badan. ijtihaadaadku waa wax yar haddaabay jiraan. masaa'ilka bay yidhahdeen akhlaaqiyaadka ahi ijtihaadiyana inta badan uma baahan, nusuustaa ku badan. abwaabtaasi marka la joogo nusuustu aad bay u tiro badan tahay. abwaabta bay yidhahdaan see mucaamalaadka ku saabsan, nolol maalmeedka caadiga ee dhaqaale leh, siyaasad leh, bulsho leh, ijtimaac leh, cilmi leh, nooca kan leh. nusuusta abwaabtaa ku soo aroortay way koobantay, way ka koobantay ta kale. waxaa ku badan ijtihaadka iyo baadidoonkeeda. haddaba waxaan rabaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu si fudud bay ugu dhaqmeen oo u fuliyeen. innaguna mar kasta waxaynu nidhaahnaa waxaynu u baahnay kitaabkiiyo qur-aanka inaynu qaadanno si aynu u fahmnana calaa manhaji salafi saalix
ummadii hore muslimiinta ee wanaagsanayd ee saxaabo lahayd ee taabiciin lahayd ee ragga lahayd sida ay ugu dhaqmeen inaan ugu dhaqanno waxaan san rabaa inaan mas'alo idin sharxo waa maxay faraqa u dhaxeeya wadaadka maanta nool iyo saxaabigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu soo saaray waa maxay faraqa u dhaxeeya madrasadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu dadka ku tarbiyeeyey iyo madaarista maanta joogtaa qaabkay u tarbiyayso ma ka warramayo nebi maxamed de inuu ilaahay doortay calayhi salaatu wasalaam oo uu rasuul ahaa oo dee diintaba kii lagu soo dejiyey u ahaa masaladaasi kama warramayo waxaan ka warramayaa mas'alo ah madrasadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd madraso tatbiiqiya oo waaqiciya ama nolosha lagu dabaqo oo ku jaan go'an wakhtigii uu noolaa iyo mushkilaadkii yaallay taasi waxay keensatay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo saaray qaada eraygaa u fiirso nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo saaray qaadada soo ma taqaaniin hogaamiyayaal saxaabada ninku waliba halkiisuu hogaamiye ka ahaa dad mansile hogaamiye wada gaadhsiisan buu soo saaray nebi maxamed muu soo saarin calayhi salaatu wasalaam arday shahaadada sidato doctor iyo magister iyo ijaaso iyo waxaasi tama soo saarin innaga madaaristeenna waxay soo saaraan dakaatiro iyo shuyuukh iyo wixii la mid ah mal farq maxaa u dhaxeeya faraq weyn baa u dhaxeeya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qur-aanka iyo xadiidku waxay ku soo degayeen 23 sannadood madrasadaasi waxay socotay oo lagaga takharujay 23 sannadood saxaabadu 23 sannadoodba waxay ku jireen tababar tadriib camaliya hadday caqiido tahay hadday siyaasad tahay hadday iqtisaad tahay hadday ijtimaac tahay hadday nusuusta si practicala bay u fulinayeen ay ula dhaqmayeen noloshii ay ku noolaayeen ama bulshooyinka ay la noolaayeen si fiican bay u fahamsanaayeen oo iyagaaba ka yimi waxay ahaayeen dad ah job trained shaqaa lagu tababaray ilaa iyo ay takharujeen innagase wadaadku masaajid buu fadhiyaa qur-aankuu kala furaa musxafka ama bukhaari buu akhrinaya hadday waxaasi dhacaan nebiguba saasaa ku dhacday saayo saasuu yidhi caynkaasuu yidhi caynkaasuu yidhi caynkaasuu yidhi nadariyaa la akhrinayaa theory nadariyaad baa madaxaaga gelaya laakiin waaqaca markaad la tagto sidaad u dabiqi lahayd mas'alo kale weeyaan waxaynu isweydiinaynaa maxaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma kitaabka iyo sunnadoo kuusan mar loo dhiibo oo uu dabeetana masaajidka la fadhiisto oo uu dabeetana dadka u sharxo soo sharxiisu kama fiicnaadeen keenna haddii kitaabka qur-aan oo isku dhan nebiga inta loo soo dhiibo calayhi salaatu wasalaam uu kaabada la fadhiisto uu dabeetana sharxo oo uu dadka u dhigo si fiican bay dadku u fahmi lahaayeen ilaahay subxaana wa tacaala sidaasi ma dooranin waayo waxay leenahay saasi waa nadariyaat waa academic waa dad ama jaamacad la geeyey ama masaajid la geeyo theory loo akhriyey weeyaan ilaahay baa ka jawaabay masaladana wuxuu leeyahay qur-aanka وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا إلهي وحليه سبحانه وتعالى كوى قالوا بيبا وحي ليين نبي محمد انتو كلبا ورانا يا عليه الصلاة والسلام قرآن با يقول سودقي وحي سودقي ما مر كتاب كيس الله وديبا يسوى كتاب ستمو يماضو إلهي با وحليه كذلك يا الأمر كذلك أرنكو ساسا نقوقو كلا فرقني أو قيب قرآن كو سودقينينا وايو لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إن أنه قلبك كدة النبي إلهي يدو كسقنه waxyaabaha sababta waxa kamid ah ilaahay wuxuu leeyahay arrin lama imanayaan
ilaa iyo xaq baan soo dejinayaa arrinkaasi waxa sax ee laga samayn karo iyo xaqiiqada dhabtee uu yahayna si fiican baa loo fasiraya يعني الصحابة النبي waxay ahaayeen nolosha intay tijaabiyaan ayaa ilaahay samada uga soo fatwoonayay waxay sameeyeen inuu saxiyeen oo qaldan yahay kaasi waa qaldana ka weecda waxa quraan saxaaba lagu canaananayo Soomaalidan arag مثلا أحد baa la dagaal galay ilaahay baa quraan soo dejinaya la minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu al-aakhirah baa nabigu waxbuu tijaabiyay ilaahay baa quraan soo dejiyo la abasa wa tawalla an jaahu al-a'ma يعني وحلالي وحا سبب النزول ليدين أخريه أما سبب ورود الحديث سبب إيراد الحديث معها سبب ورود الحديث لما ده وحي شيئان حديثك مدنا وانك وريه حديثك ورينا يي سببتي كو كلفتين وشغا انت بدن دعدوين با دعيي دعدودني markay dhacdo saxaabiga xadiidka sheegayay midna waa xadiidku sababtu ku yimi oo ah nabi maxamed alayhi salatu wasalaam sababtii ku kaliftay inuu warka kan sheego waxa sabab al-wurud al-haditha ama asbab an-nuzul ka quraanka ku soo arooray oo quraanku ku yimi oo dhamay waa dhacdooyin nololeed oo practical oo jawaab laga bixinayo saxaabada nabi maxamed marka waxay la noolayeen alayhi salatu wasalaam isagoo dib ku jira iyo isagoo baraaraysan isagoo dagaal ku jira iyo isagoo nabad ku jira isagoo heshiisiye galaya isagoo tamar yar isagoo xoogaystay isagoo laga xoog badan yahay waxa soo dhan oo nolol practical bay galeen dabeetana mushkilad kasto timi ilaahi baa ka jawaabay yasalunaka an kada wala qul qul illahu yuftiikum balala allah ka fatwoonayay dhibaatooyin kan dhacday iyo waxay tahay ta macnaheedu waxa weeyaan saxaabada waxa lagu tarangareeyay inay fahmaan maxaa caqiida maxaa siyaasa ah مثلا markaan leeyahay maxaa caqiida maxaa siyaasa ah aqaaidu waa ideology laga ma dhaqaaqo isbedel kuma dhaco qadaayadka siyaasiga laakiin musaawama bay aqbalaan wala gorgortama awooda lagu xisaabtama mowqifta istaagaysa awoodaada ku xidhan tahay gorgortan bay ku xidhan tahay waxa lagu ogoliyay ku xidhan tahay waxa aad raadinaysaa ku xidhan tahay wax badan bay ku xidhan tahay haddaad mawaaqifta siyaasiga caqiida u qaadato ka waran wixii galawaad gaalaysiinaysaa de ilaan waa mas'ala caqiida baad wala kacday laakiin saxaabadu si practical iyagu u galeen musaawamaat buu nabigu galay waxay saxaabadu si practical u barteen maxaa qaanuuna maxaa akhlaaqa maxaa akhlaaqiyad iyo wacdi iyo tarshiid lagu daweeyaa maxaa se u baahan in maxkamad iyo qaanuun iyo sharci lagu daweeyo صحابته waxay si fiican u barteen الموالاه والبراء والولاء الولاء والبراء maxaa caqiido la isku jaraya maxaa musaawama aqbali kara waxay leeyahay masaa'ilkan markaynu tilmaamayno waxay ahaayeen dad shaqo galay dabeetana shaqo kasto ay qabteen wixii ka saxaya wixii ka qaldanaa ilaahay uu sheegay shaqooyinkay qabanayeen oo dhan baa ilaahay wuxuu sheegay intaana waa qaldanaydeen markan waad saxsanaydeen tijaabada waa ku guulaysateen taasi sax ma ahayn wadadayna ka weecataan bay ahayd waxa laydin ma ogola nolol caadi bay ku jireen walidaalika saxaabadu ma ahayn ardo iskuul dhigata ma ahayn baliya bugsito nusuusun qoro oo theory loo ururiyo ma ahayn taasi waxay sababtay markay soo baxeen inay noqdaan dad qaada ah way ninkani xaqiiqooyinkan uu soo taagnaa mesela sulhul hudaybiya waxay soo taagnaayeen masaa'il iyaga ku adkayd marka kan oo ay malaa aqaa'idba moodi karayeen oo nabigu musaawamaad siyaasiya ka dhigay sulhul hudaybiya heshiiska waa wada garanaysaa wuxuu nabigu la galay alayhi salaatu wasalaam ilaa yaxad ay gaadhay إلى مجا النبي إن وقرأ ورقة هالشيء كنا يديدان وأبو النبي محمد كله هالشيء ما يبين هذا النبي نمدا يا رسول كاي وحكى تشوشي مجا عاقة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قرأ بيدا واحد ماي الرحمن كي الرحيم كجرن منه بسمك اللهم قرأ مجا عالة أنت أسمان أنا قرأ النبي هذا وحوار كي مسائل كاسي مساومة سياسية نيتي وحوار كي النبي عليه الصلاة والسلام
isagoo heshiisyo galaya ayay isa soo taagayeen muslim la cadaabayo toorjar ku jira oo nabigu aqbalay inuu heshiiska galay kana uu yidhi wardaanu heshiis baa ku jira sabir oo ilaahay tala saaro yani markuu sulh Hudaybiya nabigu heshiiska nimanka la galay ama jandal baa isa soo taago silsilada ku xidhan oo la toorjar garayo soo baxsaday nin xabsi ka soo baxsaday oo silsiladaysan oo dhibaato haysata taagan isbir waxtasib buu nabigu ku yidhi sabir oo xisaabso ilaahay dartii u xisaabso anuu heshiis baan galeen waxay saxaabadu joogeen iyadoo dagaal ay ku jiraan oo haddana saxaabada qaar ka mid ay heshiis galeen oo nabigu yidhi heshiiskooda u fuliya مثلا غزوة بدر markay dhacaysay xadiiskii saxiix muslimku wuxuu sheegayay xudayfa ibn al-yaman iyo abihi wada socda oo muhaajiriin soo socday quraysh qabatay markaas la yiri xaga ku socotaan markaas ay yiraahdeen madiina yathrib markaas la yiri kuma socotaan nabi maxamed ba ku socotaan yaani ciidankan aanu saynaa galeysaan kuma socono bay dhahay magaalada amsi galeynaa waxa lagu yiri heshiisna la gala heshiis bay la galeen heshiisku muxuu yahay nabi maxamed iyo ciidankiisa kaleey salaatu wasalaam inaydan soo hiilineen oo soo raacinin nimanka way isgaleynaaye labadii naasi way sii deerinaysa inaydan galaynin waa la galeen oo la sii daayay hadhow ay nabiga u yimaadeen waxay dhahdeen ilaahay rasuulkiisiyo nimanka quraysheed waa naqabteen heshiisna waxaanu ku soo galnay inaanan dagaalka kala qayb galin maxaa tala ah ونبي محمد وقتي وبهنا عليه الصلاة والسلام رج لقت ربنا صعب قالوا إنه وطه كن عيدنا حق كلا شوقان وما أنتوا كدوا عيني نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي وهدات كوحدة يرهلاك الدنيا الدبل وجوع عبد مايو كوحدة سيهديها لك سنتو إله الدنيا الدبل وجوع عبد مايو دقال أنا كنت لقى لمباق بصدق والصحابة دين بدنا يشوكت مدينة وأنا صار راعين هذا يسقوا وحاصو مش مسألة النبي هاي ستاي كاتها هاي أيوه حكيري نفي لهم عهدهم ونستعين الله بهم إيانا بلن كودان وفينيا دقال كان إلهي بانو كالميسان ياسكتك أبو كيري حذيفة دقال مقلين يا به تونا قبل يسكو هايو يعني وحنو قد جيدا صحابة وحي نولا يا نبي محمد يهود هشيس لقليا وحي نولا يا نبي محمد قريش ومشركين هشيس لقليا وحي نولا يا نبي محمد دولمات كجرو دقال كجرو دقال لميا وحي نبي الله نولايان عليه الصلاة والسلام وقت الدجال وقت النبتقلية وقت هشيس وقت لقى حق بدأ وحولبا سيدة دراد وحو النبي قصاص عليه الصلاة والسلام قادة وحلقة المامة هو قامي يال مركو النبي قريودي عليه الصلاة والسلام إلهي أفصدي أبي بكر با مسلمين تعالى كاو قاضي عمر با كدبا قاضي عثمان با كدبا قاضي على كدبا قاضي رقها با كدبا قاضي قارده الدنيا دور دم باي فرتين قاده باي هايه ما انتصه انه waxaan joognaa casri islaamka nidaamka dawladnimo iyo nololeed oo dhan laga saaray oo la saaray ruufafka masaajid iyo maktabadaha sagoo qoran ba wax la dhigay halkan masaajidka gudihiisa iyo maktabaduhu kitaabka yaala waxa aan soo saaraa jaamacadda ardayga gala maqaacid aljaamacaad ka soo baxa ama masaajidda wax ku dhigta masaajidda ka soo qalin jabiya wuxuu soo baxaa arday theory soo bartay nadariyaad soo bartay laakiin nolosha waaqiciga aan waxba ka aqoonin ونظريات أكاديمية وثيوري علمية ما هي ثيوري فضل وثيوري علمية وصابرتي لكن نلش تجربكم عليه ما تجاب ثيوري كان مو قارن حد وحيابا بدنا وبهناين وكلا صاره تصالنا دي سينية ثيوري يا براكتيكال كان شيء محاول حياه لبدان رأي أفكارات كان شيء محاول حياه مثلا قال يرضى إن الدم بوحة تقارني ما سوق بنيه كبدا عقتل العيارة تيم كبدا عقد بين الصبيين إنها دبت أنا بروفيسور كنت تخصصي كبدا عقتين وكان كوتش تببرة عالم كوكو قصر رينا وكان بروفيسور كوكو قصر رينا كبدا وكان لبعضنا إن أنا عافمات قبوا في دواوين مال بينكو حرينا دبت أنا وآخرنا
alloo dhiga baynu nidhi 2 sannadood bay ku akhrinayeen marna garoonka geeyaan oo liyaaqa badaniya iyo digdigtan la baraayo in jidhka la jajabiyo iyo si isu laba rogi lahaa marna kubadda iyo qaabka weerarka loo galo iyo qaabka difaaca loo galayo waa kan buu qodhay coachki tiimkan la ciyaarayna hadday tiimka qaacidadka caynkaas ku ciyaaray yihiin ra'sul xarbaheennu waa mid afar dhexe afar dambe laba xagana waka wixii buu sharxay wuxuu dhigay tiyariga kubadda lagu ciyaaro oo dhan nimankaasi markay khubaro ku noqdeen ee bahasha liyaaqa badaniya barteen ee wax walba barteen ayayna waxaan nidhi kaalay haddaba waxa la ciyaaraysaan oo doorkan waxaan nidhi kaalay haddaba waxa la ciyaaraysaan oo doorkan laydinku tijaabinaya inaad la ciyaartaan Brazil imisaad rajaynaysaa inay goolal ka dhaliyaan يعني ninka kani theory buu sidaa garoonku soo galay imisa theory-gu maskaxdiisa ku xaadiraya markuu ninka ku soo baxo ma yatoonal baad ka saartaa maxaad kala imisu ka fikiraya waad u malaynaysaa saytu fikiraya waa kubada laga qaadaya يعني كان laakiin theory-ga badan loo akhrinay practical loo soo train gareeyay ee tiimka lagu soo train gareeyay la soo waday qofka iyo qofkan theory-ga loo dhigay marka nolosha dhabta alla isugu yimaado iyo ma wixiisu dhab yihiin yani ninna wuxuu bartay wax practical ah si practical loo train gareeyay ninna wuxuu hayaa maxay theory buu haystaa nadariyaad buu hayaa tamacneedu waxa weeyaan aqoonta lagu qaato madaarista cilmiga ama jaamacaadka ama masaajidda ama waxaasi oo dhami waa buxuuth nadariya laakiin marka ay timaado in si practical loo kala saaro waxyaabo badan الولاء والبراء مركو عقيدية هي بين التسامح والتعايش والمعاملات والمساومات السياسية وحا مركا للرباين لك لصاره مركا للرباين لك لصاره وحيابا بدن ونولشتنا يوبا هنتهي وكلا قدي سنتي وحلنا قفكو ثيري حتى هدو استيعابه وسيدو براكتيكالي مركو فولين ايو وحبدا مثلا حديث بريدة صحيح مسلم كويا الله saxaabiga si burayda wuxuu leeyahay nabigu kaleey salaatu wasalaam markuu ciidan dirayo wuxuu fari jiray inuu nafiisana ilaahay uga cabsado subhanahu wa ta'ala muslimiintana waxanka ula dhaqmo gaalada sidoo la dhaqmo waxa la farayay xadiiska waxa kamid ah nabigu ku yiri kaleey salaatu wasalaam amiirka uu dirayo idha hasarta ahla hisn dul qal'ad ama dhufays ku jira hadaad ka qabato maxay go'doomiso وفارادوك أن تنزلهم على حكم الله ويكو يرادان وروحا نوصر دعنا إلهي حكم كيسا ويسديبنا لكن إلهي حكم كيسا ربنا يندقو حكمته فلا تنزلهم على حكم الله بن بكير إلهي حكم كيسا هو صور دعنا هكا أقبلي هذا حلقة أقبليها والصحابي والنبي قدر أيوه دبتنا وحليه هديكو يرادان إلهي حكم كيسا بان وأقبلينا كاس هيالي بن بكير وما حيقبل ولكن أنزلهم على حكمك بنبي كيري وحتى هذا وحن إذن كسر دعنا يا حكم كيجا أوايو نبي حولي فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيه أم لا أدو قرن ما يسيدنا هلالي دونتو إلهي حكم كيسا يناد كون كو هلالي دونتو يناد قفي دونتو محلو كيدا أدو بشر باتو واد اجتهادي دونتا لكن اجتهاد كاغاسي 100% إن القرآن يسنة وافقسي ما هو بتد سنة واد كفت وطي سيدي يكولا موغطي اجتهاد كاغا وكالينينك مجتهد كهدو خطأنا وحليا محي أجر هدو أصيبنا لا أجر لكن ما الله بينه أصيبه مر هذا الله بيننا أصيبه سيلا حكم كيسو مويان وحكا لكو قادم ما يهورني وحي مسألة التلمامي صح تنزيل النصوص على الواقع مركا الله يمدو اجتهاد علماء دو حيدا دان واجتهاد كي وقوب بدنا علماء دو سمين شرتيبا وايو نصوص دي هاتن ويسوي دا دكتور دينتي يوردما ويطالة لكن ان براكتيكالي الله طبقه ومسألة اجتهادية تنمحن ويتشي دا مركا إسلام نمدا الروف كسارنا ميساسكا اكتينا القرآن كيالا إن نولش اللغو طبقا
ومحاولة اجتهادية بشرية قد تصيب وقد تخطئ واسكدي بني آدم أو ربقف كمسلم كينو اسكدي كتابك قرآن إنه وافتشيه نلاش عادية إن هذا صيبتنا وصورتقل إن هذا محي كفتنا وصورتقل جوانب تربضا وقصور يجهل يخطأ بقفك بني آدم كاكو السجن saxaabadu iyagu waxay kaga gadisnaayeen waxaan leenahay wax walba iyagoo practical loo soo tarangareeyay oo iskuul 23 sanadood hadii ba eraygaasi uu sax noqdo 23 sanadood wax la barayay ayuu nabigu ka tagay wuxuu ka tagay kaleey salaatu wasalaam iyagoo qaada ah wuxuu ka tagay iyagoo jiil loogu talagalay inay tusaale u noqdaan ummadda muslimiinta ee damboodhan duul amalkooda lagu daydo inay noqdaan inagu laba dhib markaa inaga ina wada haysta kowka koowaad islaamiyiinta maanta nool haysata waxa kamid ah runta marka la isu sheego aqoonto yar qilatul ilm walibaal ilm shar'i war xamaas iyo surwaalko la gaabsaday gadhko la baxo quraanku uu ka tira badan yahay xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo islaamka fahmigiisu naam wa sunnada kamid yihiin kuwa kani soo jeed tira badan dadku uu hayaa لكن انتبه الرسوخ في العلم يوجره انتبه الرسوخ في العلم يوجره أما وحنا ننكر عدم استيعاب النظريات العلمية نظريات العلم قال ما يستيعاب سفي عن لو درجن الرقبة مركي أرتاد سفي عن صور تيم باب عررين انتهانوا عبين بقى واور صديون كدبنا وحلوان طبقي ما حد طبقه ما بعد ورسنه ما بعد لقينه وحكوه الرئيسين شرع سفي عن لو فهمه ان كتاب السنه سفي عن لو حنباره ولذلك بان لنا استحوذ ما انت اسلامي عام كجرته waxa ku yar mubdiciinta iyo mujtahidiinta iyo mufakiriinta way ku yariyeen dadka raasukhay way yariyeen ولذلك gafkooda uu tira badanaya cid kasto aan raasikhina rabta hadana inay wax dabaqdo waxaad naftaada ku dabaqaysaa ama kuf ama dhacdi ku jirtaa marka aad taadatay laakiin markaad bulshaweynta u baxdo waxaad ku dabaqaysaa rusukh cilmiya buu baahay boodbood iyo dhalinyaranimo uma baahna iyo xamaasad iyo quraankay ku taala qura uma baahna waxay u baahan tahay maxay rusukh cilmiya idan waxaan leenahay teen waa sax wa caama masaa'ilkii nusuusta ku badnaydna waa laga yaabaa saxeenu inuu ku bato مسائلك عقيدة نوع ما إن بدن للصحة بدعة إن بدن لقد دركوا يدا ولي لقى يابو إن هريرة وحسك مرمرية مسائلك عبادات كائن دور للصحة لكن مركا يتكتو مسائلك بالشدة أي وداكته وبهنا اجتهاداتك ويري كو مركا محل إسلاميين تمان تنالو حيستكو قلة العلم لبنا ومحي قلة الخبرة ما أنت هداد جامعات دكتورة كسوق هذا هندسة معمارية سيدا وحلور صو أو دكتورة أو دبتنا مل بيدان لوجين لوجيرا وحلاقة ربع سكاي سكرابس هنا دستوري سيدات طبقة أما بقول طبقة أترى هذا شهادة دي وجود بيسان ستة دوني ده لقى قاطع وطن هذا هو اللي قابل لما تشجور اسمه صارين تيرجو ما ديجان شرتي واحد شوكتون خلاص كي جامعة دوم تفردي intee laga rajo qaba adigoo tiyarigi oo dhan sida waanu ka maqnayn intee laga rajo qaba inaad sky scrabis dhisto waxay isweydiinta leen waxa noqonaysaa nooca hadaynu ku bilowno wuxuun baa la isweydiinayaa mid ay 5 dabaq kaga dunto markuu marinayo mid ay 20 kaga dunto mid ay 30 kaga dunto idan dadkeenu dilayna uun ba kala badanaya inba intuu shaqaalaha saaran meesha intay ku dumayso ayuma kala badanaya ilaan aqoontaad wadaa maaha aqoon practical maaha aqoon maanta aynu labadan shayba markaa way yariyeen koow marka koowaad cilmiyan looma istaycaabin wixii loo baahnaa in la istaycaabo aqoon ahaan looma sido laba tajaarib ma jirto islaamka waa hore laga saaray meesha hadda tajaarib noloshan casriga dambe ahi way yartay ka kale ku jira dhibta taagani wax weeyaan waagii hore dunidu way kala fogeyd waana kala xidhnayd waxaaga xataa hadaad meel iskaga tijaabsanayso meel yar oo iska gaara bay ahayd adiga ku gaara maanta dunida waa la isku xidhay waxay noqotay tuulo yar oo qura
qaraarka maanta cidi ay meel yar ka gaadho ayaa wuxuu raadaynaya dunida inteeda kale oo dhan. yacni waxay yidhahdaan siyaasadda maantu dhacdo kastoo siyaasigii bay yidhaahdaan waxay leedahay manduur maxalliya, mid iqliimiya iyo mid caalamiya. bulshada yar ay ka dhex dhacday waxa ay ku hayso iqliimka ama gobolka raadka ku yeelanayso, dunida dhammaanteed raadka ay ku yeelanayso, iyadoo aan laba daraasaynin oo la garanaynin in tijaabooyin la bilaaba ilama qumana. maanta waxaan odhan karnaa qofka mid waa nadariyaadkii cilmiga ee kitaabka iyo sunnada ahaa, midna waa waaqicii la noolaa ee lagu dabaqayay. waaqaca kani faham buu u baahan yahay, aragtidiisa siyaasiga, dhaqaaleed, ijtimaaceed, waayo adigoo aan tasawur saxiixa ka haysanin masaa'ilka uma helaysid fataawi iyo waxaad ku dabaqdo toona haddaanad masaa'ilka si fiican u garanaynin. walidalik ayaa waxay tilmaamaan maanta masaa'il agtiina basiid ka ah ayaa caalamulislaami waxaa culamo joogtaa inta isugu yimaado bay 6 sannadood fadhiyeen. bal qiyaas fiisa kaadhku intuu idinla leegi baalkan yare sidaa un loo mariyo ee lacagta meelaha bangiyada lagala baxo. mujamaca thaqaafiga islaami, majmac ilcilmi, munadama mu'tamar alcaalam islaamiga ka raabita baa la keenay iyadoo fataawi laga weydiinayo culammadu. majmacaasi wuxuu caado u leeyahay, wuxuu leeyahay khubaro aqoonta kasta ee markaa la rabo in fataawi laga bixiyo looga yeedho. khubaraa loo yeedhay iqhtisaadiyiina waxa la yidhi bahalkan iyo rasmiyaadkiisa ka warrama. wax badan bay sharxeen. niman culamaa baa loo diro buxuud ka soo qora la yidhi. buxuud ay culammadu soo qorto waxa loo qaybiyaa nin sheekh kastoo caalami isagoo jooga gurigiisa iyo maktabadiisa iyo meeshiisiibu baxdigu u taga, commentski iyo wixii uu rabo inuu calaamadiyo dib u soo calaamadiyaa. dabeetana waa la isugu yimaadaa haddana dib baa laga niqaashaa. 6 sannadood baa 2 sannadoodoo kasta dib loogu soo noqonayay oo la niqaashayay. yani waa mas'ale agtaada basiidka ah. maxaad u malaynaysaa nolol dhan waan mujtahidba wadan iyo mid kitaabka eega toona? waxay u baahan tahay wax tiro badan leh. waxaan leenahay nolosha maanta joogta ilmaam xaqiiqiyay u baahan tahay oo siyaasiya oo dhaqaaleed oo ijtimaaciya, xarakati tadaafuc albashari inaad si fiican u fahamto. waxaan ku soo koobayaa qaybtan koowaad aan idin leeyahay muxaawalaadka ay wadaan dadka islaamiyiinta maanta dunida ku noole ama jamaacadka islaamiga waa ijtihaadaad bashariya. kow, islaamkuna ma aha waxa saaran miisaanka inuu qaldan yahay inuu saxan yahay la eegayayo. waxa weeyaan raggan sitee maanta xambaarsan rag baa hore u tijaabiyo waa la hubaa ka ah, laakiin qoladan maanta sidataa inay tijaabadeeda sax tahay iyo inaanay sax ahayn weeyaan waxa meesha yaalla. tijaabadaas inay sax tahayna waxay ku xidhantuu labadaa shay oo ah intay cilmiga raasuqday shareecada ah iyo intay waaqaca ay nooshay qiimayn karto ee qiimayn cilmiya ay qiimayn karto. qiimayntu maaha raadiyoyada iyo tvyadan soo dhagaysano dabeetana arrimu saasay u socdaan xaggan ka wada. waa qiimayn cilmiyaan rabnaa, qiimayn cilmiya oo si cilmiya loo daraasayn karo. haddaan luqadii ahlulcilmiga xaggooda u weecdo, waxaa maqasheen qur-aanka isagoo ilahay leh subxaanaه watacaala wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat layastakhlifannahum fi اlardi kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakkinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunani laa yushrikuuna bi shay'a waman kafara bacda dalika faulaa'ika hum اlfaasiquun. waxaa laga yaabaa ragga badh leeyihiin mustafa adun bay meel adag kaa gashaye wuxuu ma adka haye waa fududoo ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku yidhi wacada allahu ilaahay wacdigiisuna waa mid la huba in la helayo. ilaahay wuxuu yaboohay aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaat. labada shay unbaabana laga rabaa. waxaan kale adigu aad sheegaysaa waa maxay? labada laga rabaa waa maxay? aliimaan walcamal الصaalix. labadaa haddii la helo qur-aankay ku taallaa in maxay? adiga awooddaada maaha. ilaahay baa yidhi layastakhlifannahum. sax weeyaan. kow, aamanuu wacamiluu الصaalixaati in 50 jeer ka badan bay qur-aanku ku soo aroortay. waxaan filayaa labada lafdo isku xiga 52 jeer inay qur-aan ku soo arooreen iyagoo kala baxsan ama mufrada ama kuwaas inay kasii tiro badan yihiin. su-aashaan idin weydiinaya waxay tahay aamanuu idin gartay goormuu camalku saalix noqdaa?
wadaadad baa wada yaqaanin soo maaha laba shartun haddii laga helaa odhan doontaan ama laba rukniyo al-ikhlaas iyo almutaabaca sacankaa ma aha in daacadnimo jirto iyo inay jirto maxay mutaabaca inuu leeyahay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam hadyigiisii waafaqsanyah waan gartay haddaba camalka saalixa midii waa bayin ijtihaadaadna uma baahna salaada soonka ilaahay dikrigiisa xuskiisa cibaadadiisa waa bayin ijtihaadaad uma baahna ama acmaali اlumma wa islaaxuhaa waxay u baahan tahay kow ijtihaadka tanziilu nusuusi cala alwaaqic hal antum mujtahiduun ijtihaadka tanziilu nusuus cala alwaaqic waxay ku xidhan tahay bay yidhaahdaan kow in waaqaca si fiican loo fahmay laba nusuustii masalada ka jawaabi lahayd inaad si fiican u fahamtay waxay ku xidhan tahay bay yidhahdaan inaad garan karto alistitaaca waalqudra ummadda awooddeeda iyo intay kari karto waxay ku xidhan tahay bay yidhahdaan inaad garan karto macrifa ma'aalaati alumuur marka waxaan la dabaqo waxa ka soo bixi doonay xataa ka dambeeya waxa uu yahay si kale haddaanu tilmaamo waxaan idin leeyahay acmaasha fardigaa inteeda badan aamanu wa camilu saalixaadkeeda waa kula gartay waana fududay qof walbana waa waxa laga rabo qof walbana waa ka aakhiro la weydiinayo walidalik baa aakhiro jamac laynagu keeni maayo qof baa laynoo keenaya qof walbana tiisaa laga xisaabinaya ama acmaali lumma iyo islaaxi lumma markay noqoto mutaabaca inay hesho oo ay noqoto tii nebi maxamed mid waafaqsani waxay u baahan tahay in qadaayaadka siyaasiga iqtisaadiga iyo ijtimaaciga intaad si fiican u fahamtay nusuustii waafaqsanaydna aad si fiican u fahamtay ummadda aad rabto inaad ku dhaqdana awooddeeda iyo istitaacadeeda inaad fahamtay inaad markaa isa saartaabay u baahan tahay hal antum ma tihiin markaa kuwii taa samayn kari lahaa si kale haddaanu tilmaamo tusaalaan idin siinaya maalan diintu way soo wada degto way wada taallaa yacni qur-aanka iyo xadiidku way dhammaystirayeen iyagoo maxfuuda soodii inoogu yaalleen haddii qofka bini aadamkaa diinta waxaa korkiisa saaran intuu awoodo sacanka maaha ummaddana waxaa korkeeda saaran intay awoodo maalan arkaanta salaadu cidina ma nasikhi karto cidina wax kama bedeli karto waa macruuf soo maaha maxaa ka mid ah sarajoogaa ka mid ah in sarajoog lagu tukado laakiin markaynu waaqaca daraasayno kumaa sarajooga ku tukada almustaiic ka awoodaa ku tukada nin buka haddaad u timaadoo tidhaahdo jiifa arkaanta salaaday ku jirtaa in la istaago adeer istaag haddaad doonayso inaad tukato maxaa soo baxaya nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi salli qaa'iman fain lam tastatic maxaa la yidhi fasalli qaacidan qaacidanku maxay ku xidhantahay inaad qofkan qudradiisa iyo istitaacadiisa inaad eegto sida qofku uu qudra iyo istitaaca u leeyahay ayay ummaddu qudra iyo istitaaca u leedahay ummaddu waxaanay xambaari karin haddaad tidhahdo ha xambaarto iyadaan weli u bislaanoo gaadhin waa intixaar siyaasiya waa ummadaad rabto inaad gowracdo oo ay dunto haddaanad waaqaca si wanaagsan u daraasaynin maalan ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu inooga warramayaa laba nebi oo israacay cala araajix khadr iyo muuse khadr afcaal buu sameeyey afcaasha uu samaynaya muuse waa wada inkirayey amran iyo nukran iyo wuxuu ku tilmaamayay inaan wax la qaadan kara aanay ahayn kadib heshiiskii markii uu dhammaaday ayuu khadr sharxay wixii uu waday wuxuu sheegay ama safiinatu tusaale ahaan ama safiinatu fakanat limasaakiina yacmaluuna fi اlbaxri faaradtu an aciibaha wakana waraa'ahum malikun yaahudu kula safiinatin gasba wardoonta buu yidhi waxaa lahaa dad masaakiinoo badda kaga xoogsada meeshanna waxaa ka dambeeyo xaggaa ay ku sii socdaan jooga nin boqora oo daalima oo doon qurux badan hadduu arko dadka ka qaada
marka masaakiintan baan u danaynayay si aan doontooda looga qaadin ayaan looxa ka saaray si uu boqorku yidhaahdo taasi waa mid doloshahay keenin oo kuwa la qaadayaanay ugu biirin kow daahirku muuse joogay waxay ahayd niman bilaash ku soo qaado sida xadiiskii bukhaari sheegayay nooli kamuu qaadanin qolada doomtu way soo qaadeen niman bilaash ku soo qaaday in doontooda la dololay mulkul ghayr inaad ku tasarrufta laa yajuus muuse wuxuu taagnaa war nimankan doontooda maxaad u daloolinaysaa waana sidii caadiga ahayd marka aanu ogayn waaqaca kan markii muuse loo sharxay dhibta jirtaa waxay tahay doontan loo dalooliyey oo masaakiinta iyamaa u faa'iido badan doon hal loox ka maqantay inay iska wataan iyo in doontaba laga qaado horta waxa u faa'iido badan doon hal loox ka maqantay inay iska wataan halkii doontoo dhan laga qaadi lahaa muuse markii loo sheegay ma murmay qur-aanku muran dambe oo muuse leeyahay ma sheegin that means markii uu waaqac ogaaday siduu yahay ayuu aqbalay in mulkul ghayr tasarrufka caynkan ee ma'aalkiisu yahay inay doontani nabad gasho in la aqbali karo mushkilaadka yowmiga waxyaabo badan ba haddaanad guntooda ogeyn aan la garanayn si loo fasiri karo walidaalika مثلا nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii abu hurayra ee bukhaari ku yaallay nin baa u yimi qaylinaya wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waan halaagsamay halagtu wa ahlagtu kii ilahay isrifayay ramadaanka u yimi oo maxaa dhacay buu nebigu ku yidhi walima wuxuu yidhi haweenkaygii baan gabadhaydii baan u galmooday maalin ramadaan buu islaantiisii iska fuulay waana saxaabi markuu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ku yidhi raqabad xore wuxuu yidhi ma haysto waxaa lagu yidhi 2 bilood oo isku xiga haddaba soon wuxuu yidhi ma karo maalin baaban adkaysan kari waayo ma 2 isku xiga baan sugi karaya ma awoodo wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaba 60 miskiin quudi markaasuu yidhi ma haysto wixiiba wuxuu iska soo taagay midnaba inaanu haysanin dabeetana meeshuu iska fadhiista nebiga calayhi salaatu wasalaam markii dambe loo keenay xoolaa la keenay dabeetana wuxuu yidhi war ninkii mee waa kan waa isa soo taagay wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam war qaado timirtaa qaado bixi iska 60kii miskiin iska sii dayaad kafaaraha kuu noqotee dabeetana haddana war kaluu keeno wuxuu yidhi wahal bayna laabatayha man huwa afqaru minni oo madiina ilaahay rasuulkiisiiyo ma wax aniga iga liitaa degan adigu wuxuunoo qaada buu nebigu ku yidhi ninkii dembiga galaa timir loogu daray yacni sharcigu kaasuu keenaya hadday duruuftu xad kaa gaadhsiisan tahay ninkii dembiga galay ayuu nebi maxamed timir ugu daray oo la yidhi mar haddaan laba haynin calayhi salaatu wasalaam wax kaa liitaana haddaanu magaaladaba joogin adigu qaado yani waxaan uga jeedaa waxaynu u baahanay 2 shay oo ah inaynu islaamnimada raasikhiin ku noqonno istaycaabno ahlu cilmi rasmiya inay dadku noqdaan iyo dhacdooyinka dunida ka jira inaynu fiqhi u yeelanno si fiicanna u fahmi karno garan karnana markaynu iyada si fiican u fahmno ayaynu garan karnaa shareecada maxaa ka qaabilsan haddaba haddii aynu rabno inaynu makhraj helno dhibta jirta in meel looga baxa la helo waxaan leeyahay dhowr shayba waa inaynu helnaa shayga koowaad waa in la helaa qiyaada calaa mustawa alumma aw calaa mustawa alcaalam hoggaan ummadeed oo ummad ama duni hoggaamin kara hoggaan waa in la helaa hoggaanku waa inuu yeeshaa sifaadkii qiyaadiga ahaa lagu yaqaanay qof qaa'ida haliyay ummadeed qof noqon karaya qur-aanka nebi yuusuf markii uu la yidhi waxbaa lagu dhibay innaka alyawma ladayna makiinun amiin markii la yidhi wuxuu sheegay in loo dhiibo meel dabeetana wuxuu sheegtay innii xafiidun caliim muuse markay gabdhuu lahayeen shaqada ha la siiya maxay yidhaahdeen inna khayra man istaajarta alqawiy alamiin qofku inuu aqoonna leeyahay ammaanana leeyahay baa muhima aqoonta iyo ammaanadu ma badna dad labadaba isku leyn la helo laakiin mararka qaarkood waa nisab bay noqon kartaa maalan shaqadaad u diranaysay noqonaysa maalan haddaad
duuliya diyaaradeed u baahantay intee baad ammaano ka rabtaa intee baad si aqoon ka rabtaa khibro ka rabtaa waxa laga yaabaa wadaad taqiya oo aan khibrad badnayn iyo mid faasiqo expert ku in shaqadaasi la horeysiyo faasiqa expert ka ah waayo waxa la rabo in diyaaradu inta halka ka kacday inay meel hebla ay fadhiisato in 30 qof ama 40 qof ama 100 qof lagu aamino inuu duuliyo iyo nin xaafida laakiin farsamadu aanay ku adkayn inuu duuliyo kan baa labada lagu aaminaya mararka qaarkoodna isweydaarka kale noqon kartaa مثلا وزير المالية قاضنيسا علمي يا أمانتي وين أمانتي سورس أدو توجي وحكسو قاعد يدي وقستولي وين مركو رأي أمانتي سحوقنتي كديبا وحي سكر لي كرا وحن لنا مركو قيادة كورمينه نبي يوسف عليه الصلاة والسلام مورن إن النبي بانهي مورن إن قروح بدن دريد إنك قروح بدن بانهي مورن إن عفيف ودمرك كدور صوم بانهي وحولين حفيظ عليم مؤهلاتك قيادة نمدو شاكتا إساقو انتن كلاباها وحينو باهن مركا قيادة دو مضد المعاصرين تمركا سيسفيني وحيد هذان صدح شيء قفك هدو لا يبيدا إساق قيادة ومن نغان كره قف فيشن لوين وهذا بيد هذا رؤية على المدى البعيد ضدكو انت ياركا يعني انكفق وين داركي كرتاه وهي ضدك هل يبادو طيهور صعدة إذن انت ياركا يعني كدرقصان وين داركي كرتاه بيد هذا أما مستقبل كوين درسي كرتاه أما بيد هذا وين قران كرتاه أود دادو انت إلاك تهي هي طموحات كاقينا تصوافة كرتو وين أنا تكوشرين محي داي دريمين كوي دهدان ضدك بربا يقو سعانا الرياضة بيد هذا isagoo soo jeedo riyoonaya soconaya yaani waxaad u baahan tahay haddaad intaad halka ka qayliso tiraada Mareykanka furanaya dee waad riyoonaysaa waxaad u baahan tahay day dreaming inaanad ku jirin waxaad u baahan tahay imkaaniyaadkaad haysato iyo waaqaca ku hortaagan inaad qiimeyn karto idan waa nin ru'ya la bay yiraahdaan وين النقطة بينها قف التزام له commitment وذا وحون شرحي قانا لكن دبدا مركي نقطان عمل بفلين كرين هداتا هاي سنة وحبا قبان كريميس وين قف committed وملتزمة وحقبان كرا وين يحي واحد هذا المهارات القيادية أما managerial skills كي قفلة وين يحي مركا وحورنا نسكو صوت بوضوبة وحين لاني وحين وباهنا إنه هلو قيادة على مستوى الأمة هجان وكفلا نمضى هجان بينو لنا بينو باهنا يقرن كره لعب كسياسي ما أنت العياره لعب كسياسي محن كفلايا هلا يا بينا ترادو والقرآن يسون إنك اللوجا باهي محل لوجا باهي وحل لوجا باهي يدت كاد كبد لدي ليسون إنك كبد تيم وطاه قرن كنت أنا قالين وحد دراسية قلدا أي وضع عيار الدوران meelahay xoog u leeyahay teamkaasi niqaad dhacfkiisa iyo wixiis askariga dagaal galintiisa waxa ugu fiican inuu warka hayo ciidanku la dagaalamaya waxay tahay si uu isku day karo inuu muhaayid uga dhigi karo mesela ciidan baa dagaal galinaysa markaas uu wuxuu wataa isagu dabaabado inta dabaabada ba haysatid waxay yiraahdaan aqliyaadka ugu fiican waxa weeyaan sidee baad u dagaal galin kartaa iyadoo dabaabadiisu ay wax tarbeeshay isla waxay yiraahdaan buuraley marka la isla galo dabaabada ma korto dan waad suuqaad ka saartay suuqii dabaabadu marka ma yaalo waa dagaal baa la galay aan dabaabadii ku jirin haddaad laakiin banaanka isula soo baxdaan dee waad maranaysaa idan waxay yiraahdaan qofku dagaalka cidda uu la galayo siyaasadda waa dagaal dhaqaale waa dagaal laba shirkadood baa loolamaya waa inaad taqaanaa shirkadaad la loolamayso istiraatiijiyaadkeeda si ay u fakarayso markaas baad geli kartaa loola baa mushtar noloshoo dhan waa nooca kan marka haddaad noqoto waxay yidhahdaan siyaasadda laba tusaale waa garanaysaa baan idin siinaya lucbatu shatranj bay yidhahdaan iyo lucbatu nerd waa laba ciyaarood oo la ciyaaro waxaa jira nin gaaleed
oo dagaalkii labaad ee dunida ka horba wuxuu soo saaray nin xisaabiyahana buu ahaa wax loo yaqaano game theory oo ah sida loo xisaabiyo cayaaraha la cayaaro game theory-gii baa waagii dambe qadiyad cilmiya laga dhigay oo dhaqaalaha gashay oo militariga gashay oo iqtisaadka gashay oo ka gashay dagaalkii labaad ee dunida inta ugu badan bay dhaheen game theory-gii uu ninka mathematician-kii lahaa baa lagu galay waa maxay waxa kani laba ciyaarood baan idin sharxaya maalan shatranj waxa ciyaaray ma leedin shatranj waa ciyaartan jaska la yidhaahdo soomaalidu jar bay ciyaartaa ama shaxda ma ciyaarteen shaxdan odayada soomaalidu ciyaarto qofka shaxda ciyaaraya ama shatranjka ciyaaraya inta aanu tallaabo guurin ciyaarta markuu eego wuxuu idhahdaa kaa haddaad guurto muxuu soo guuraya isagu dabeetana wuxuu odhanayaa kaa wuu guuri kara kaa wuu guuri kara haa kaa hadduu guuro maxaad samaynaysaa xaggaasaadna ka guuraysaa kaa kale hadduu guurona xaggaad ka guur waxaad xisaabinaysaa inta tallaabo ee ninkan u suurtagala inuu guuro waa inaad jawaabteedii garanaysaa mid walba sidaad uga jawaabi lahayd odayga shaxda cayaaraya intaasuu eegaa markuu cabbaar u fiirsado shatranjka ninka cayaaraya intuu saa u eegaba wuxuu idhaahdaa istabka shanaad baan ku qabanayaa buu leeyahy boqorkaagu u dhintay istabka shanaad hoosuu u dhintay wuxuu xisaabinayaa inta suurtagal ee aad haysatay inaad guurto iyo guuris kastoo aad guurto inuu jawaabteeda garanayo jawaabta ka dambaysa uu garanayo deetana wuxuu ku leeyahy 5 goor markaynu guurno boqorkaagu dhintay wuxuu sii xisaabiyey intaasoo jeer sida loo guurayo marka waxay idhahdaan labada nina shaxda wada ciyaaraya ama shatranjka wada ciyaaraya kollayba horta mid baa badinaya soocaynka ma aha laakiin waxa lagaa badiyey mar aad cayaarta wixii awooddaada oo dhan aad isticmaasho aad fakartay oo ku tala gashay wax kasta inaad ka jawaabi karto waxay idhahdaan laacibka siyaasiga ee dhabka ahi waa kaas bay idhahdaan waa nin garan kara axsaabta siyaasadda waxa layshayo haddaad waxaa guurto maxaa soo baxaya waxay idhahdaan cagsiga cayaarta cayaar kalaa u ah cayaarta laadhuuda la ydhahdo soo ma taqaaniin maxaa la cayaaraa weligaaba isxiiji 6 ilaah ka dhigu baad odhanaysaa ma garanaysid wax ka soo baxaya baalku ma dhow 6 hal baa laga yaabaa inuu ku soo baxo adigu 6 baad raadinaysa ma kantaroolshid waxa soo baxaya waxay idhahdeen laacibka laadhuugu siyaasi maaha haddaad tiraa aynu ku dhufanno wuxuunbay soo bixii mashaahada wayma nasriya meel bay ka bixi doontaa waa laacibkii laadhuudaad waayo asalku waa inaad guulaysataa asalku waa kaa nabigu calayhi salaatu wasalaam maalan ghaswatu badar ma odhanin ku kiciya waa shahaada helaysaan wuxuu lahaa ilaahu intani hadday halaagsanto dunida dib laguga caabudi maayo shahaadadu uma yahayn matlab jamaaci uu leeyahy wada dhinta aakhira janno gelaysaane islaam buu rabay inuu wado inay wada dhintaan ma rabin sadraadeed inuu guulaystaaba ayuu ahaa waxa koowaad ee optionka u yaalla laakiin meel dagaal ka dhacay kollayba waa la dhimanaya waa in dad shahaado helaan haddaad dadkao dhan u qoondayso ka warran inay shahaadada helaan tiraa ku kiciya aakhira janno wada gelaysaane يعني waxaan uga jeedaa masalada tani waxa weeyaan waxaan jeclay inaa idinkuna aamustaan waxaan tilmaamaynaa waxa weeyaan qiyaadada islaamiga ahi waa inay noqotaa qiyaado fahmi karta yani ummadda islaamiga cidda hogaamin karta waa inuu noqdaa qof fahmi kara lucabka la cayaaraya nooca uu yahay waa inuu noqon karaa qof islaam dhaba fahmi karayo tabiqi karaya qof garan kara lucabkan cidda la cayaaraysa sida loola cayaarayo haddii aydan samayn karayn markaa qaa'idku ummadda hogaaminaya hadduu yahay qof aan samayn karaynin wixii loo baahnaa oo rushdigu hadduu xamaasku ka bato xamaaska iyo caatifadda iyo cadhada iyo xiisuhu hadduu ka bato caqliga wax badanoo soconaya maaha si kale haddaanu tilmaamo ma daawateen cayaar la yidhaahdo musaaracatu hiiraan cayaarta ay caanka ku yihiin nimanka loo yaqaano isbaanishku isbanyoolku dibi la daawado oo meel oo nin mara yaroo castaago oo dibiga intaa
warma lagu mudmudo xanaaqaad dabeetana ninka jiid buu isiraahdaa mara yaroo casbi uu taagaa maradu jeedha waxay dhahdaan qaa'idka aan ahayn qaa'id siyaasi oo muxannaki wuxuu la mid yahay dibiga marada cas loo taago waxa aan ku ahayn wixii important ku adduunyo waxaad ku diriraysaa waxaad la mid tahay ninkan marada cas loo taagayo dibigu marka laga cadhaysiiyo ninka dil buu is odhanayaa laakiin marka marada cas loo taago iyadun buu arkaa saa daraaddeed marada cas buu cararaya markuu marada cas mar jeeraba waran baa la geliyaa markaa dabeetana wuu soo wareegaa wuu soo cararaa xagga kale marada cas u gudbiyaa taasuu jiidhaa waran kale u geliyaa cayaarta la daawanaya waxa weeyaan ninkan cayaartooyga meesha taagani dibigaa inta laga dilayay dadku daawanayaanoo waada lahayaa markuu waran la geliyaba musaaracatu thiiraan waxaa cayaaraya qofka ku jira dagaallo haamashiyo aan ahayn wixii ummaddu ay u baahnayd waxaan loo baahnayn haddaad ku jirto waxaad la mid tahay quwa lacdaa dadka kaa xoogga badan le cadowgii wuxuu jecel yahay intaanad xoogaysan in lagu boqoojiyo si taas ay u dhici karta waxa weeyaan in saaxada lagu soo saaraa fiican intaanad naf badan yeelanin dabeetana waa inaad noqotaa dibigaa kolba laga cadhaysiinaya waranka madax laga gelinayo ee baasha cas riixaya markaan soo koobo qodobka koowaad aan tilmaamaya waxa weeyaan qiyaada calaa mustawa alumma waa inuu noqdaa qiyaadadaasi mid laacib siyaasiya noqon karo dhaba ثالث الأمر waxaan leenahay qadaaya alumma waxay u baahan tahay inay ummadii ka fekerto koox yaroo gaar oo isku xidhata guri madow ummadda inay ku qasabto waxay iyadu doonayso maaha ummaddu dabcan waa islaamnimo waa in kitaab iyo sunno la isku xukumaa waa in kitaab iyo sunno la raacaa laakiin kitaab iyo sunno dharaar yaalla waa inuu noqdaa kitaab iyo sunne ummaddu ay ka tashan karto maadaama ay umma islaamiyiin umamka sidoodaba kama maarmaan waxa loo yaqaano wada tashiga nabi maxamed goorta ilaahay farayo inuu saxaabadiisa la tashado waa goorma calayhi salaatu wasalaam waa goor talooyinkooda qaarkood laga yaabo wixii ka ratibmay inuu jabaha ghaswatu uxud maalan nabiga calayhi salaatu wasalaam taladiisii waxay u badnayd in magaalada la joogo oo difaaca laga galo laakiin qolo dhalinyaro xamaasadaysan iyo kooxa isugu tagay oo yidhi maxaynu magaalada ka qabanayna dabadda inoo saar dabeetana dabadii baa loo baxay dagaalkii baa la galay calaa kulli xaal dhib badan baa muslimiinta soo gaadhay dhibtaasi markay soo gaadhay kadib baa ilaahay qur-aan soo dejiyey qur-aankaa ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum wastakfir lahum haddaad ahaan lahayd baa ilaahay leeyahy mid dabeecad adag oo qalbi adag dadku way kaa yaaci lahaayeen walow xaqba sheege iska cafi baa ilaahay yidhi oo ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaaf weydii kuwa la leeyay cafi ayaa ilaahay wuxuu leeyahy washaawirhum fi lamr iyaga la tasha baa ilaahay leeyahy waa kuwii dembaabay ama sababihii colku uu ku jabay keenay sababihii colku uu ku jabay waa maxay masaladu maxay tilmaamaysaa markan unbay dhacdadu idinka qaldantaye aslu shuura ma xumaan la tilmaamaya walow waa jabteenne waxaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo tilmaamaya saxaabadan gaftay inuu cafiyo laakiin saxaabada la cafinaya waa kuwa ragga badh baa goobta ka cararay madiinaa loogu tegay ragga badh markii la jabay wax badan oo dhibaato ah baa dhacday haddana ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr dembigooda ilaahay dembi dhaaf u weydii adiguna cafi arrinkana kala tasho waamurhum shuuraa baynahum idan waxay leenahay tani maxay keensanaysaa waxay keensanaysaa dadka ahlu cilmiga ah iyo ahlu khibraha ah iyo takhasusaadka cilmiga ah leh in badan wax la weydiin karo laakiin haddaad iyaga kala dhuumato maxaa soo baxaya haddaad wixii kitaabba yaqaano aad ka dhuumato tidhaahdo kitaabkaanaan dabaqaya ka warran waa balaayo kale waxay ahayd talada ugu badan cidda la weydiinaya inay noqoto ciddii cilmiga lahayd mid shareeco mid dhaqaale mid siyaasadeed mid diineed mid dagaaleed ummadda kaadirkeedii waxgaradka ahaa qiyaadaadkeedii hogaaminaya inuu noqdo dadka waxa badan la weydiinaya ummadda muslimiinta waxa weeyaan in lala tashado fi silmi wa fi lxarb nabad hadday tay iyo dagaal hadday tay siyaasad hadday tay dhaqaale hadday tay waxay ummadi leedahay ummad baa leh waa inay ummaddu taladeeda wadaagtaa walidaalika waxay yidhahdaan isbedelada ummadda ah ku dhaca saddex meelood buu maraa bay yidhahdaan
saddexda meelood oo mara waxa weeyaan bay yidhaahdaan kooxda koowaad waxay ku tilmaamaan shariixatul badi waa dad ideology rumaysan maalan nin caalima oo fikrad diineed faafinaya isbeddelku shariixada ideology-gu ma bilowdo shariixada fikradda sida maaha isbeddelka waxa samaysa iyagu cuquuli naas bay isku dayaan inay isbeddeli karaan laakiin ummad ahaan waxa bedela waxay yidhaahdaan asxaabi shawka wanufuud waxay culimmadu ku tilmaamaan ama ahlulxalli walcaqdi iyo wixii ka mid ah waxaa bedela dadka ummadda hoggaanka u haya isbeddelku uu ka suurtageliyey mid dhaqaale ha noqdo hoggaan cilmiyeed hoggaan dhaqaale hoggaan maamul wuxuu doonaya ha noqdo dadka hoggaanka u haya ummaddu hadday isbeddelka iyagu qaataan ayay fududaataa shariixada inta kalena inay dhismaha ummadduna waxay dhaha waa shariixatulbinaa iyo iyaga dadkao dhan baa ka qayb gala wakhtigaan idinku tiro badiyey laakiin waxaan ku soo koobayaa makhrajku waa wax cad waa waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayثu laa yaxtasib waa war cad oo ilaahay qur-aan ku sheegay wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat layastakhlifannahum fi lard laakiin wuxuu u baahan yahay in la gaadhsiiyo camalkaa saalixa ahi inuu ikhlaasna yeesho mutaabacana u yeesho mutaabaco rasmiyana wuxuu yeelan karaa marka waaqaca si fiican loo daraaseeyey ee daawadii u cuntantay kitaabkii sunnaa looga keeno ee markaasuu sida saxa noqon karaa waxaan ku soo koobayaa markaasi ilaahi subxaanahu wa tacaala inaynu in badan barinaba muhima deriskaygani waxa gundhig u ah isku day kastoo fashila rag baa fashilay ee islaamnimadu ma fashilin masaladaasina caqligiinna si fiican ha ahaato isku day kasta muxaawaladaa ciddii siday ayaa miscalculation samaysay iyagaa siday u xisaabtameen ay qaldanayd amaa islaamku 1000 sannadood buu dunida tan keligii talinayey أو هجاميني أو هرسعد والله أعلم بالله التوفيق السلام عليكم الله من قلبي وأقصده على دربي أعدد من فضائله